soo tabinta xaaladda abaaraha waxa uu ahaa ujeedka ugu weyn ee aan ugu ambabaxnay deegaano dhowr ah oo dhaca waqooyiga Beledweyne. Halkan waa deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 15 kiiloomitir u jira Beledweyne. Abaar ba'an oo dadka deegaanka inoo sheegeen inay tahay tii ugu darneyd 10 sano ee la soo dhaafay ayaa ka jirta deegaankan iyo deegaano kale oo hoos yimaada. biyaha ceelka way go'an biyaha ceesha waxa waaye waadiga markay biyo soo maraan ayay ceeshu biyo leeyihiin irmaan baa leeyahay wixii cuna ayuu dhiiqa waa irmaana ceeshii waadigii baa guray ceeshiina saasi ku gurtay may waxay dhacday mar hadda laga joogo 12 sano ama laga joogo ayaa abaar aad u baan u timiday markaas ayay gureen ceesho haddana tiyo kale ayuu muuqataa waxtiba ma baysan dhihinba waxaa laga raray xoolaha halkan ku noolaa badi maadaama loo waayay biyo cabaan iyo baad ay cunaan kaliya xilligan waxaa deegaanka ku nool xoolo awood u waayeen lagu daro duunyada laga raray deegaanka Ceelgaal waxaa xilligan ku nool dad tira ahaan aad ugu yar dadkii hore ugu noolaa waxaana loo sababeynaya abaaraha ku dhuftay gobolka ceelashii laga waraabinayay xoolaha ayaa guray halka qaarkoodna ay biyo yarayeen sida dadka deegaanka inoo sheegeen ceelkan waayahan lama cabin matooro la cabi jiray matoorihiina waayahan waadigu biyo soo maqaadan ayagiiba guray ceelka waaweyn oo Ceelgaal la jiray ayaguna duugan yihiin wax biyo ka caba male wax daryeera male baraagihiina nimankii laga cabi jiray matooraha in ayaguna waadiga la cabi jiray waadigiina waa eber biyo male wallahi abaartu wax la soo koobi kara ma ahan samaxa yeelay anigu inta meeshan joogay oo intaan aan ku soo dhamaanay maanta meeshii taaganta meel lamid anigu wili ma aragba samaxa yeelay waadigan sida ogtiin biyo soo mari jiray waadiga Ceelgaal mar waadigu waa jibi jiriyay waxba yaraatay maanta hal buunta 7 buunta hal buunta hata soo marin hata waxba yaraatay ceelishii markuu waa sii fogaadeen hata arinta kale ee xaaladda si adkaysa ayaa ah in ceelashan uu ku dhex yaalo waadiyaal la rumaysan yahay in xilli walba lagu badbaadi karo iyagana laga waayay xasan guuye waxa uu matooro la isku xiray biyo aan badnayn uu kaga soo saaraa ceelkan waxaana uu ka hadlayaa dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha halkan ka jira biyo waa laga waayay ceelashii anigu waxaan ahay matoore geel waa yimid waana abaar biyo ma jiraan hadda ana matoorka walaxmo dhan laha laga soo suubina biyo ma jiraan marka waxa loo baahan yahay dadka jooga in biyo loo keeno oo meel kasta gool biyo la goobo oo biyo la keeno oo ceelasha la qodo oo diyaatir la keeno adduunka waa u jeedin dhinac roobka dhinac mar uu guura marka waxa loo baahan yahay in ilaahay loo keeno qayr ilaahay Allah keeno marka laga yimaado abaaraha ka jira deegaanka Ceelgaal waxaa sidoo kale jira abaaro baan oo saameyn ku yeeshay bulshada qaybo ka mid ah oo ku nool gobolka Mustafa Ali Cabdu Dalsan TV Beledweyne.